waxbarashada runtii asaasiga ah waxay muhiim u tahay inaan ka hadalno heerar badan bay soo martay burburkii dowladda dhexe kadib 1992 waxaa lagu bilaabay iskuulo ardayda ay ku fariisanayeen koombooyin iyo jirgaamo tadaamu waxay ka mid ahayd iskuuladii ugu horeysay Puntland laga hirgeliyay Boosaaso ayaa laga soo bilaabay marxaladaas runtii marxalad aad u adag bay ahayd oo markaas dabcan dagaalo sokeeya socday waxbarasho markii aad ka hadasho oo aad ku riyooto arrin aad u weyn bay ahayd asaaskii dowladda Puntland kadib dowladda Puntland waxay dib u kicisay iskuuladii public ah oo Cumar Samatar ka mid yahay oo runtii iyaguna waxbarashada dafcad weyn siiyay oo arday badan waxbarashada ka kala go'day oo markaasna aan la qabsan karin dugsiyadii hoose ay fursad u heleen marka inay dugsiyadaas oo secondary ahaa ay iyaguna dhigtaan marxaladaasna marxalad kale ahayd marxaladii saddexaad waxay ahayd 2009kii markii dowladii Abdulrahman Farole la mideeyay manaahijta iyo imtixaanaadka shahaadiga ahaa tacliintu dabcan horumarkeeda waxay toos u taabanaysaa qofka iyo qoyska haddii qof tayo la helo waxa imaanaysa marka qoys tayo leh haddii hooyo aqoon leh aan helno qoys aqoon leh oo tayo laha imaanaysa haddii qoys fiican la helo tayo leh waxa imaanaysa bulsho tayo leh haddii bulsho tayo leh helo dawlad tayo leh imaanaysa waxa wax isku xiran weey haddii dawlad tayo leh ay timaadana adduun weynaha wax la qaybsanayna marka meesha sabta ka qorsan tahay ma ahan dawladnimada waa waxbarashadii iyo aqoontii iyo wacyiga insaanka weey duruufaha jira waxbarashada hal fasal ayaa laga yaabaa 60 arday ka badan inay wax ku dhigtaan waalidkii markii wuxuu leeyahay ilmahay wax lama baro ilmaha tayo ma leh ka warrama macalinka u soo galaya 60 arday wuxuu ardaydaas bari karaa wuxuu kontrooli karaa wuxuu sixi karaa yani waa garanaysaa in ay iska tahay wax uu iska daadiyo kadibna uu ka baxo arintaas marka hadda anaga bahda waxbarashada hayna waa qiraynaa oo waa duruufo jira arday overcrowd isku ah oo fasaladii ka buuxa oo qaylinaya oo buuqaya oo macalinka uu san garan karin ardayga wax fahmay hatta arday badan oo indhahooda laga yaabo inay daciif yihiin hatta subuurada arki karaan aan la ogaan karin mid kale waxay tahay ardaydeenu waxay qaataan waxyaabo nadariyaad oo iska theory ah laabab ma haystaan chemistry ma arkaan physics ma arkaan biology ma arkaan haddii cell la yiraahdo ma yaqaano haddii la yiraahdo muxuu ahaayay magnesium ba waxa la yiraahdaa calcium magnesium kala saari karo laakiin theory ahaan waa isaga haystaan ardayda badankood markay jaamacadaha aadaan dhibaato kala kulmaan iyadana waa duruuf ardaydu inay 2021 marayaan inaysan wax laaba haysan waa arrin aad u dhib badan ilmaha waxbarashada gaaray oo iskuulka aada waa 57.2 waxa weeye waa tirakoobka wasaaradda waxbarashada Puntland ilmaha aan waxbarashada aadin oo wali iskuulka banaanka ka joogana waa 42.8 wax ku dhow 50% carruurta iskuul ma aadaan Xaaji Ali Bixi markaan u soo laabto dabcan 2001 baa la aasaasay ilaa arday ku dhow 100% waxaan ka wadaa 969 arday waxa kun ku dhow baa dhigta 34 lagu dhiftay 60 dhul ah ayaa hadda ardayda oo 12 fasal ah ayaa kunkaas wax ku bartaan aad bay runtii ugu yartahay waxa qorsheenu yahay in haddii ay baydmo insha Allah taala dhismo cusub iskuulka in loo hirgeliyo dhismaha cusub qorshihiisu waxa weeye 24 fasal inuu yeesho oo fasalkiiba 35 arday ka badan inaysan dhigan karin iskuulka inuu sidoo kale laababkii biology-ga iyo chemistry-ga iyo computer-ka intaba waa kamid iyadana waxyaabaha la dhisayo maktabad qaadaysa ilaa 5,000 oo buug oo kitaab oo aan ahayn manahijta kaliya kutub badan oo ardayda akhristaan ardayda gaalkacay oo dhan ay imaan karto meel ay imaan karto xafiisyada maamulka ilaa 9 ilaa hadda estimated budgetka aan ugu talagalnay 588 kun wax ku dhow baa ku baxaysa fiigarka waa laga yaabaa inuu weynaado laakiin mashruuca productionkiisa iyo hadafka aan ka leenahay waliba intaas inuu mustaqbal ka sii weynaadaan rabnaa faceka koowaad marka ilaa $302,000 ayaa qorshuhu yahay inuu ku baxo oo 16 fasal iyo maamulkii uu noqonayaa qayb faceka 1 phase 2 wuxuu noqonayaa dhameystirka inta kale marka hadda $302,000 ayaa phase 1 noqon doona bulshada reer Gaalkacyo waxaan ka rabnaa inay mashruuca ka qayb qaataan oo qayb ay ka noqdaan waayihii carab wax laga sugi jiray iyo hay'adaha samafal waa dhamaadeen maanta waxa weeye qof walba inuu ku tashto xoogiisa iyo jeebkiisa iyo muruqiisa waxay tahay yani horumarka bulshada marka waxaan rabnaa insha Allah taala inuu noqdo bulsho mashruuca oo ka yimid isla markaana iyadoo ay dhisatay
محصولك النتيجة كصوب بحنا يضو أي لذا لكن مشروع محرمنا إن شاء الله تعالى إنه برشدة قيم لباحي كقاعدته ومركزنا أي لفدور ونقط